tan iyo markii madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu magacaabay 24 bishii Abriil ee inuu soo dhaafnay golaha wasiirada cusub ee galmudug ayaa waxa soo ifbaxay cabashada beelaha qaar ayaa ka muujinayaan sida loo maamulayo saami qaybsiga golaha wasiirada cusub ee galmudug Akis Xildhibaan Cabdulle Faarax Xirsi Cawooley oo ku hadlay afka beesha Maxamed Camal oo kamid ah beelaha deegaanada galmudug oo shir jira ay maanta ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa senator Yuusuf Dhagey iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ku eedeeyay in xumintii beeshoodu lahayd ay u magacaabeen shakhsi aysan kala tashanin beeshooda taasina uu ku tilmaamay inay tahay wax aysan beeshu u dulqaadan karin sida uu hadalka u dhigay haddaba meesha tan waxa aan soo bandhigayaa xisaabtan iyo lala xisaabtamayo mas'uuliyiinta ay kamid yihiin xildhibaan Yuusuf Geelle Ugaas iyo madaxweyne Qoorqoor aan ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigayno haddaba beesha aan ka hadlayo waxaa haysta shabaab muddo dheer waxaana sugaynay in maadaama galmudug maanta la isugu yimiday in wax ku oola laga soo saaro haday tahay dib u heshiisiin beelaha kaar kala dhaxaysa beeshaas iyo hadii ay tahay sidii loo maareyn lahaay dhibaatada ummadda halka degan muddo xil saareed haddaba maxaa dhacay waxaa dhacay in madaxweyne Qoorqoor iyo mudane Dhagey in ay yiraahdeen gabar ayaan waxaan ka keenaynaa Mareykanka gabadhaas oo lagu magacaabay xuquuq lisaanka iyo haweenka haddaba waa qof aan weligeed arag meeshaas annaguna aanaan arag aanana u xil saaran codsanna 29 sano kadib waxaa la yaab leh in diktatoriyadii lala diriray ee dawladii kacaanka 22 ahayd in maanta la soo celiyo gobolka Mareykanka gabadha laga keenayo tusaale ahaan haddii ay madax ka dhiganayaan dadkaas ayaga doorta oo aqoontooda annagu ma aanan dooran mana codsanin intaan la magacaabina waan ka hadalnay haddaba maanta galmudug maadaama la isugu yimiday ma waxaan sugaynay diktatoriyad cusub waxaa la yiri dimuqraadiyad ha lagu dhiso dimuqraadiyadu waxay codka iyo rabitaanka shacabka iska leh haddaba shacabkaas inay ka xoroobaan shabaab lama doonayo inay ku soo dhex jiraan ayaa la doonayaa iyadoo haddana la dhumiyay saamigii reer Maxamed Camal beesha duble ay ku lahaayeen haday tahay degaan iyo haday tahay dadba Ilaahay u badiyay halka ay degan yihiin sida daraadeed waxaan leenahay magacaabidaas mana aqoonsanayno waana waxba kama jiraan iyo diktatoriyad cusub waxaan rabaa inaan u sheego ra'iisul wasaare Xasan muddadii dheereed iyo waqtigii dheereed oo ku dhunshay mideynta galmudug iyo wax ka qabashadeeda in la baal maray horaana u sheegnay in ay jirayaan dad danaystayaal oo doonaya inay maran habaabiyaan dadaalkaas dawladda dhexe ay ku bixisay oo Ra'iisul Cali Khayr hormoodka u ahay waxaan arkaynaa in halkan lagu beeray dad dhalinyaro oo aan u bislayn siyaasadda Maxamed Cabdulle Tooxow Universal TV Dhuusamareeb